آية الله خميني وحال ديجر روح الله ابن مصطفى ابن أحمد الموسوي الخميني وحاو أها سياسي وذا ديميت وإيراني waxauu ka talinayay Iiraan intii u dhaxaysay sanadkii 1979 ilaa iyo sanadkii 1989 wuxuuna ahaa marjic diimeed Shiici ah. waxa uu madax ka ahaa kacdoonkii xilka looga tuuray boqorkii Maxamed Ridha al-Bahlawi. waxay aaminsan yihiin inuu yahay aabaha ruuxiga ee dhammaan Shiicada kuwaas oo ku nool Iiraan iyo dibaddeeda. Al-Khumeyni waxa uu dhashay sanadkii 1902 wuxuuna ku dhashay Iiraan. aabihii waxa uu ahaa mid ka mid ah wadaadada Shiiciga kaasoo si weyn loo ixtiraamo. halkan waa janalka Rafiiq al-Macruuf. Al-Khumeyni waxa uu bilaabay Qur'aanka Kariimka isagoo 6 jira. waxa uu jeclaa inuu barto dhammaan cilmiga qaybihiisa kala duwan. Al-Khumeyni markuu soo gaaray da'da 12 jirka waxa uu diiradda saaray inuu barto diinta Islaamka, suugaanta luqadda Carabiga, fiqiga, usuulka iyo sidoo kale waxa uu bartay maadada xisaabta iyo falsafada. Al-Khumeyni waxa uu bilaabay kacdoon siyaasadeed markuu soo gaaray da'da 18 jirka kaasoo uga soo horjeedo xukuumadda dhexe ee Iiraan. waxa uu bilaabay dagaalkiisii ugu horreysay kaasoo uu kala soo horjeeday Maxamed Shaah markuu uu qoray kitaabkii ugu magac daray Kashf al-Asraar. sanadkii 1944 Khumeyni waxa uu soo bandhigay fadeexadaha iyo jaraa'imta dawladda Maxamed Ridha al-Bahlawi ay geysanayso. waxa uu kitaabkiisa Kashf al-Asraar uu ku soo bandhigay in hamigiisu uu yahay inuu aasaaso dawlad islaami ah. Al-Khumeyni waxa uu sii joogteeyay dagaalkii uu kala horjeeday nidaamkii Maxamed Ridha muddo 20 sano. waxa uu mucaaradkii noqday mid aad u xoogan. Al-Khumeyni waxa uu ku biiray shakhsiyaadkii ugu cadcaddaa ee kacdoonka waday. sanadkii 1963 waxaa sii batay mudaharaadyadii looga soo horjeeday Maxamed Shaah waxayna dawladda go'aan ku soo saartay in Al-Khumeyni laga musaafiriyo waddanka uusan ka qayb qaadan nidaam siyaasadeed oo dalka ka jiro. waxaana loo musaafiriyay dalka Turkiga waxaana laga mamnuucay inuu ka qayb qaato wax nashaadaad siyaasadeed. Al-Khumeyni Turkiga waxa uu sii joogay muddo 14 sano. waxaa guulaystay kacdoonkii Iiraaniyiinta. muddadii dheereed ee uu joogay Al-Khumeyni halkan kama aysan mamnuucin in dadka weli qalbiga ay ku hayaan. waxaa soo ifbaxday xukuumaddii Maxamed Ridha al-Bahlawi in xidhiidh wanaagsan ay la yeelatay waddamada Mareykanka, Israa'iil kaasoo ku wajahan dhanka dhaqaalaha iyo siyaasadda. waxaa sii batay kacdoonkii looga soo horjeeday Maxamed Ridha. waxaa guulaystay kacdoonkii Iiraaniyiinta. sanadkii 1979 waxaa xukunkii laga tuuray Maxamed Ridha al-Bahlawi. kacdoonka waxaa ka qayb qaatay wadaadada calmaaniyiinta, maarigsiyiinta, shuuciyiinta. Al-Khumeynina waxaa loo xil saaray in go'aanka ugu dambeeyo isaga uu leeyahay. sanadkii 1977 Al-Khumeyni waxa uu ku soo laabtay Iiraan isagoo 77 jir ah si uu madax uga noqdo kacdoonka Iiraan. markii uu qabsaday Al-Khumeyni xukunka waxa uu daldalaad ku xukumay dhammaan generaaladii ugu waaweynaa ee ka tirsanaa xukuumaddii Maxamed Ridha ilaa iyo 200 oo generaalna waa uu daldalay. Al-Khumeyni waxa uu albaabada iskugu dhuftay tobanaan warbaahinno kuwaasoo ka soo horjeeday fikirkiisa. markii uu qabsaday xukunka waxa uu xidhay 2 sano jaamacadihii dhammaan wuxuuna ruqso u jaray in ka badan 20,000 oo macallimiin ahaa iyo 8,000 oo shaqaalaha maxkamadaha ka mid ahaa kuwaasoo lagu eedeeyey in ay wax isdawmarin samayn jireen. markii ay xoogaysatay kacdoonkii Iiraaniyiinta waxaa dil lagu xukumay xubno badan kuwaas oo ayadoo dadka ay arkeen laga jaray qoorta halka qaar kalena la daldalay. waxayna gaarayeen ilaa iyo 30,000 oo maxaabiis ah. taasoo Al-Khumeyni ugu diriyay fariin kuwa mucaaradka ee isaga ka soo horjeedo. Al-Khumeyni si uu uga takhaluso mucaaradka isaga ka soo horjeedo waxa uu isticmaali jiray cid alaale haddii isaga ka hor imaado inuu ku magacaabo inay riddo tahay haddii aysan toobad keeninna uu dili doono. Al-Khumeyni waxa uu hamiga ku hayay in uu thawrada Iiraaniyiinta uu gaarsiiyo dhammaan dawladaha ku hareeraysan waxayna sabab u noqotay in Afghanistan uu ka bilowdo dagaalkii sokeeye. waxayna sabab u noqotay in ay isku dhacaan Ciraaq iyo Iiraan. dagaalkii loogu magac darayna dagaalkii Qaraara dhexdooda uu ka waxa uu socday 8 sano dagaalku u dhaxeeyay Iiraan iyo Ciraaq. ugu dambeyntii Al-Khumeyni waxa uu ku dhawaaqay xabad joojin Agoosto 1988 kadib markii uu dareemay in laga awood badinayo. xoogga Ciraaqiyiinta waxay heleen taageero dhanka Carabta uga imaanayay.
waxyar kadib markii uu ku dhawaaqay al-Khumeyni xabad joojinta waxa uu cabay koob sun ah kaas oo u geeriyooday 3 Julaay sanadkii 1989. al-Khumeyni waxaa lagu aasay magaalada Dahraan ee dalka Iiraan. waxaa soo xaadiray janaasadiisa malaayiin shacabka Iiraaniyiinta iyo Shiicada, waxayna noqotay janaasadii ugu badnayd ee abid ee qof Shiica uu geeriyoodo ee loo soo janaaseeyo. ugu dambeyntii al-Khumeyni waxaa lagu aasay qabuuraha loo yaqaano Jannati Zahra. waxa uu ahaa nin saameyn aad u weyn ku lahaa kacdoonkii Iiraaniyiinta, waana ninka sabab u noqday ilaa iyo maantadan Iiraan in ay lahaato wadaad diimeed laga dambeeyo.